labada wadan ee Armenia iyo Azerbaijan ayaa ku dhawaaqay in ku dhawaad 100 askari ay ku dhinteen dagaaladoodii ugu cuslaatan iyo sanadkii 2020 kaas oo ka dhashay muranka gobolka Nagorno-Karabakh mawjadihii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda gobolkaasi ay u badan yihiin dadka Armeeniyiinta ayaa ku dhamaaday xabad joojin jilicsan oo u dhexdhexaadinayay Ruushku balse wasaaradda difaaca ee Baku ayaa sheegtay in 50 askari oo Azerbaijaaniyiin ah lagu dilay sababo la xiriira daandaansi ballaaran oo kaga yimid dhanka Armenia halka ay Armeniana hore u shaacisay dhimashada 49 ka mid ah askarteeda dhinaca kale Azerbaijan ayaa inta badan ku eedeynaysa Armenia inay jabisay xabad joojinta kadib isku dhacyo socday muddo habeena kuwaasi oo soo cusboonaysiiyay cabsida laga qabo dagaal kale oo dhan walba una dhaxeeya labada dal ee cadawtinimada taariikhiga ah ee ka dhaxayso Ruushka ayaa dhankiisa ku dhawaaqay inay heshiis xabad joojin ah dhexdhigeen dhinacyada dagaalamay taasoo keentay in muddo saacadaha ay xaaladdu degto balse markii dambe Azerbaijan ayaa dhankeeda soo jeedisay eedeyna in ciidamada Armenia ay si cad u jabinayaan heshiis kasta oo la dhigo isla markaana ay aaminaadoodu adag tahay Awil Yusuf Ciise wararka warbaahinta Sahal TV موقتها معمل إن أكون كسيفين أكون أو كمدا أكون ماذا سلام بانكي أديكن كرتو لعجها أديكو تشوجا جوريجا جوبت هذا الشغلة إيميل كستبع وحنا كل دكان كرتا أديكو مرة يهب كم فضود فضلا جراح حديك سداد اللح حديك أكون كعجب بانكيجا حديك لعجته أفرجيس سيفين أكون وكونت دجالا ومعمل كوكو كيتسان كرول لعجيس سيفضود وحنا كلب حكرتا أديكو تجا حرمها بانكيجا وكليا كوكيتسو لعجها جا كونت دجال بانكيجا سلام دي aad safar aad tahay doora bas adigoo ka sii dooranaya goobin faroom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh